ma tahay qof qoraya research, ma tahay arday qalinjebinaya qoraya buugga qalinjebinta, kuna wareersan ama waqti badan uga lumay maareynta referencega. haddaba waxaan ku sameeyay hab fudud automatic oo aad u habeyn doontid referencegaaga. haddaba ila soo ilaa muuqaalka dhamaadkiisa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawow Somali Fit. haddii ay tahay markii ugu horeysay fadlan subscribe dheh, like saar channelka, videoga share u dheh asxaabta si ay uga faa'iidaystaan. waxaa jiray laba muuqaalo hore aan uga soo hadlay cilmi baarista oo ay ahaayeen sida loola soo dego research article oo lacaga si free iyo muuqaalka ka dambeeya oo ahaa sidee u dooran ciwaan cilmi baaris. labadaba description-ka ayaad ka heli doontaa insha allah. muuqaalkan waxaa kaga hadli doonaa insha allah qaabka referencega ugu habeyn doontid automatic oo fudud adigoo waqti badan kaa lumin. referencega hore waxaan soo fiirinaa muuqaalka horeeya waxaan soo dooranay ciwaan baan soo dooranay, ciwaankii baan fiirinaa. haddaan teginaa insha allah ciwaanka soo doortay haddii aad xasuusataan ama muuqaalka hore soo daawatay wuxuu ahaa ciwaankaas uu ahaa anoo soo analyze garay sida uu soo doortay. muuqaalka hore ayaad kaga heli doontaa. hadda waxaan fiirin doonaa qaabka referencega aan ugu sameyn doono ciwaankan oo kale. referencega wuxuu noqon doonaa referencega markaa qoraysid laba qaab baa loo qoraa, qaab manual ah iyo qaab automatic ah. qaab manualka waa inaad waxa kamid inaad isticmaashid wordka Microsoft-ga ku siinaya wordka inaad ku qortid sidaan kale ugu maareysid qof author-ka ku qortid qaab noocaas ah oo manual ah inaad gacantaada ku qortid, iyo qaab kale oo inaad adigu gacantaada ku qortid inaad sameysid sida kan oo kale aan u qoray. tusaale hadda kan wuxuu ka bilaabaysaa marka ugu horeysa wuxuu ka bilaabmayaa qofka magaciisa, qofka research markaa qoray, sanadka uu qoray, iyo ciwaanka markaa title-ka uu leeyahay research-ka, iyo journal-ka lagu daabacay, iyo sanadka la daabacay, bisha la daabacay, iyo inta page ku kooban yahay. that's the referencega markaad manual u qorisid iyo marka kale intuu ka kooban yahay. markan waxaan rabaa inaan soo qaab manual ah si ugu qori lahayd. tusaale hadda halkan maxaa uga jeedaa background-ka wax reference baa uga jeedaa ama citation waa may reference baa joognaa wax ilaa hadda reference ma aragno. okay, waxaan fiirin doonaa program la dhaho Mendeley waan la soo degi doonaa. Mendeley waana Mendeley aan la soo degno. software-ku Mendeley waa qaab noocaas u egyahay colorkiisa asaga soo download gareynaa. ugu hore markaa Mendeley soo booqatay website-kiisa waa inaad horta registration aad sameysaa oo aad sync app samaysatid ama ciwaan samaysatid. kadib ciwaanka markaad samaysatid waa inaad download dhahdaa, desktop-kaaga ku download garaysataa, kadibna download baa dhahnaa insha allah. Mendeley wuxuu leeyahay waa kaliya maaha referencega inaad ku qortid, sidoo kale waxay leedahay website-ka wuxuu leeyahay akoonada. markaa akoonka ka furatid waxaa kuu sahliya inaad publication ku sameysaa. publication ayaad ku sameyn kartaa. publication-kaas dad badan baa ka faa'iiday. marka dadka hadda uu soo qabtay baa follow gareynaysaa, waa kadibna waxay soo publish gareeyaan baad ka faa'iideysan doontaa insha allah. research-ka area-da aragtaa ka dooranaysaa. sidoo kale profile buu leeyahay. profile-kaaga adna waxaa ku leedahay site baa ku leedahay, waxaa kusoo upload gareyn kartid. hadda uu noo soo degay waanu soo dejinaynaa, waan install gareynaa, barteena ku install gareynaa. okay, aniga already uu install gareysan yahay. Mendeley qaab noocan ayuu egyahay. wuxuu leeyahay literature review buu leeyahay. waxaa raadin karaa literature-ka ayaad raadin kartaa waana ka akhrisan kartaa. tusaale hadda waxaa raadinaa obesity waa nala raadsan tahay. okay, obesity okay, article-kaas kale aan fiirinaa. article-kaas kale waa akhrisan karnaa. horta ugu muhiimsan inuu leeyahay inaad ku xirtid oo Mendeley inaad ku xirtid word-kaaga. ana hadda uu igu xiran yahay install baa kuu soo baxaysa oo ku dhufanaysaa, then uninstall marka kuu soo baxdo uu ku xiriirsan yahay. meeshaan fiiri add baa dhahaysaa, tan
wuxuu ku geynayaa folderkaaga wixii article aad rabtid kusoo upload garay ana already waa kusoo dejiyey ilaa 5 article. Okay, article-kan oo kale ku dhufananaa. Okay, waa ku dhuftay kan waxyaalaha kale oo siilay wax kamid ah samayn kartid article-kii inaad samayn kartid tusaale markaa akhrinayso kale inaad note ku samayn kartid highlight inaad saaran kartid highlight baa saaran kartaa note baa ku qoran kartaa adoo dooranaya meesha ku qor sidoo kale meeshaas kale note ku qoran kartaa bala isla aragnay note-ka balaan halkaan oo kale waxaan rabaa inaan hadda citation u sameeyno kadib waxaad samaynaysaa open baa dhahaysaa just go to the Mendeley. Okay, article-ka soo qaado. Okay, waxaan soo qaato kaas harana soo qaato halkaan markaa fiirisid wuxuu leeyahay halkaan waa kan journalki waa kan magaciisi journalka journal type way haddii book uu yahay asaga kala dooranayo markaa wuxuu yahay book waxay noqotaba waa kan article-ka title-kii waa kan author-kii qoray waa kan journalka lagu daabacay yearka la daabacay bishii la daabacay issue-gii pages-kii waa kan intaas xog ayuu leeyahay sidoo kale DOA-ga article-ka waa kan xogtii dhammaystiran detail oo dhammaystiran buu ku siiyey dan aad wax samaynaysaa mar walba waxaad check garaynaysaa intaan xog ma ku buuxdaa intaana muhiim ah halkan oo kale hadday ka maqan tahay waa buuxsanaysaa waa kasoo fiirinaysaa haddii marmarka qaarkood ciladahaas uu yeelan karaa inay pageska uu kala dhimo marka waa taasna waa ku darsanaysaa adoona ku koobiyen kadib waxaad samaynaysaa sidoo kale waxaad dhihi kartaa related document baa raadin kartaa oo aad overall research-ka ka raadin kartaa citation baa sameynaynaa waxaan tegaynaa waxaan qorinaa ciwaankii marka muxuu ka koobnaa wuxuu ka qornaa type 2 baa ku qornay obesity baa ku qornay okay obesity baa qorinaa then enter baa dhahnaa okay already uu noo soo set gareeyay citation-ka marka halkaa marisid citation-ka wax kala dooran kartaa halkaa wax ka doorataa nooca rabtid ma AB style-ka u qoraysaa ma AB style baa u qoraysaa ma Harvard baa u qoraysaa ma Vancouver baa u qoraysaa dhiganayaa Vancouver style baa ka dhiganayaa then waxaan leeyahay site baan leeyahay okay aan qoray obesity ka kuwaad baa dooranaya okay baan leeyahay already wuxuu qaatay number 1 waxaan qoranayaa kana qaadanaya wuxuu noqonayaa site-ka labaad buu noqonayaa citation-ka labaad aan soo doorto okay kan baa tagaya markan waxaan sameynaynaa citation-ka ugu dambeeyay reference ugu dambeeya sameynaynaa okay halkaa waxaan ku sameynay saddexdii reference saas ku sameynay waxa muhiim ah mar walba inuu application-ka ku furan yahay oo Mendeley-ga ku balaqan yahay markuu Mendeley-ga ku furan yahay ayaad citation-kii si fudud u sameynaysaa marka waxa xigeenaa sameynay reference-ina soo upload gareyno na maanta dhan wax qoranay waxaan hadda wax sameynaynaa inaan reference-ga dhan hal mar banaanka keeno kaliya wax taabanayna insert bibliography baa dhahaynaa waa kan reference-ga saddexda reference aan qoranay maanta dhan mid walba ayagoo si qurux badan u qoran waa rajeynaya inaa fahantay okay Mendeley-ga wuxuu kaloo leeyahay dheeriya group baa sameyn kartaa groupka asxaabtaada ayaad kusoo invite garaynaysaa okay group Somali research ka dhigo description-ka balbalaa ku qoro okay then create group baa dhahaysaa haddii arti waxaa ka dhigan karaa invite only oo ku invite garayn kartaa private baa ka dhigan kartaa waxaa rabtaa ka dhigan kartaa kadibna asxaabta ayaa kula share garan kartaa wixii documents-ka waa maasantahay daawashadaada videoga intaas inoogu eegyahay fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe dheh like saar videoga share na u dheh asxaabta si ay uga faa'iidaystaan